barnaamijkeena caawa aan uga hadli doono cudurka ka dilaacay wadanka Shiinaha 28 December sanadkii soo dhaafay. Cudurkan oo loo yaqaan corona ayaa wadamo badan oo ku faafay. Wadamada ku faafay waxa kamid ah Turkiga, Ethiopia iyo Kenya cabsi ka qabta. Cudurkan oo xooga badan aan ka diyaarinay waxaan wareys la yeelanay arday Soomaaliyeed oo wadanka Shiinaha wax ku barato. jaamac waxaad warbixin naga siisaa magaalada Wuhan la yiraahdo xaaladdu waa sidii iminka waxaad ii sheegtay in magaaladaas ku sugan tahay maxaad noo warbixin karaysaa hadda xaaladda ka socota cudurka soo dilaacay wallahi xaaladda sida wadanka guud ahaan way wada saameysay gaar ahaan magaalada Wuhan gobolka Hubei magaalada Wuhan magaaladuna waa magaalada dad aad u fara badan ay degan yihiin ilaa 12 milyan lagu qiyaasay population-keeda xanuunkaana waa xanuun lagu kala qaado sidii la ogsoon yahay bishaan sanadkii hore dabayaaqadiisii buu bilowday bishii December 31 ilaa 8 inta u dhaxaysay baa la sheegay inuu xanuunkan soo ifbaxay ma garatay waxaad ii sheegtay inay ku nool yihiin gobolkaas Soomaali badan iminka Soomaalida halkaas degan waa imisa intee la eg yihiin oo warbixin ama ka haysaa xaaladooda ma ka waraysaa harun horta magaalada dadku waa la xanimay socodkeediina waa la joojiyay dhammaan shalay galabtii goortii ahayd 5 galabnimo ilaa xalay 9 galabnimo ciidamada cirka ee China waxay ku buufinayeen daawo hawada sare ee magaalada dhammaan iyo nawaaxigeeda dhulkana waxa ku buufinayay baabuurtii dadkana waxaad ii sheegtay inay ku nool yihiin gobolkaas Soomaali badan iminka Soomaalida halkaas degan waa imisa intee la eg yihiin oo warbixin ama ka haysaa xaaladooda ma ka waraysaa wallahi Soomaalida ardayda gobolka arday badan ardayda joogtana inta badan baa Soomaalida aad bay ugu badan tahay gobolka Hubei gaar ahaan magaalada Wuhan inkastoo waagi hore aad u badneed laakiin haddeertaan Soomaalida way ku sii mataqaana sidii waagi hore ma aha saasay tahay ardayda kale ajaanibta ee meesha joogta bay Soomaalidu wax la qabtaa haddeertaan oo dadkii ardadii intii gudaha jaamacadda deganeed jaamacadda gudaha lagu xanibay wixii banaanka jooga oo kale banaanka degana guryahooda kama soo baxin Soomaalida degana haddeertaan xanuunka waxay la qabaan hogaamiyaha Hong Kong Carrie Lam ayaa ku dhawaaqday joojinta tilaabooyinka cusub lagu xakameyn doono faafidda fayraskan cusub safaaradda tareenada ayaa la hakin doonaa waxay ka dambeeyo xilliyada saqda dhexe sidoo kale doomanka iyo duulimaadka saqda dhexe ah waqti xaadirkan ayaa la diyaarin doonaa talaalka cudurkan cusub ee ka soo cusbaanaaday dalka Shiinaha inkastoo ay saacadeen wax talaal oo hadda u yaalo mooyee in lagu dadaalo nadaafadda xakameynta nadaafadda ayaa sidaan tiri ilaa hadda ma jiraan wax dhimasho ilaa wadanka Shiinaha mooyee laakiin 44 kiis ayaa laga soo xaqiijiyay dalalka ay ka mid yihiin Shiinaha, Japan, Mareykanka iyo Australia warar kale oo ka imaanaya Afrika ayaa la sheegaya in loogu shakisan yahay dalka Ethiopia iyo dalka Kenya Ibrahim Abdaaw official channelka kala daawanaysan waa Abdaaw official si aad ula socoto warbixinadan iyo warbixino kale oo dheeriya fadlan subscribe share like gambarka furo waadna mahadsantihiin